رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. marka hore waxaan mahad u jeedinayaa mahad ballaaran Allahi nagu guuleeyay hawshan culus ee waajibaadka culus leh. marka xigta waxaan mahad u jeedinayaa xildhibaanada deegaanka degmada Baraawe kuwaas oo codkooda si hagar la'aan ah siiyay. inta kadib hadduu alla idmo dhammaan ummadda ama shacabka ku nool degmada Baraawe waxaan u soo jeedinayaa hadduu la yiraahdo in hadduu la yiraahdo ay nagala shaqeeyaan nabadgelyada taasoo number 1 inoo ah. waxaan kaloo baaq u jeedinayaa odayaasha dhaqanka deegaanka Baraawe in wada shaqeyn buuxda hadduu la yiraahdo ayagana ay u soo jeestaan si degmadan isbuucyadii aan soo dhaafnay qalalaasaha gashay ee kala shakiga badan oo shacabka dhex galay. waxaan u ballan qaadayaa shacabka reer Baraawe hadduu la yiraahdo inaan si dhexdhexaada cadaalad ah oo aan ugu xaq soorayo inaan uga shaqeyn doono hadduu la yiraahdo inta hadduu la yiraahdo ku mashquulsan arrimaha khilaafaadka ama shacabka inay iska hor keenaan. waxaan leeyahay hadduu la yiraahdo arrinkaas ha laga joogo oo ha laga digtoonaado aan isku maxay ahayd garabsano oo isku garab istaagno hadduu la yiraahdo sidii degmadan aan u samata bixin lahayn oo degmadan ay ugu noqon lahayd degmooyinka kale gobolka Shabeellaha Hoose iyo Koonfur Galbeedba degmo hormuud u ah oo loo soo hirta oo shacabka reer Koonfur Galbeed ay u soo hirtaan ay u soo kala maxay ahayd u soo kala baratamaan. insha Allah intaasaan warkayga ku soo koobayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.